المقالة المريضة يلا حطها نايده هذا لو ما باهنين لحظة لا وحبا كايبين من لقى تغنو ملح بانا يمسيري بان كايبيا روحan لحظة isku macaaneenayay oo madax baadee alla naxariistii jannaha ka warabiyay waxa magaalada Burco ku geeriyooday abwaan Jila Sooraan Ismaaciil Sugulle oo kamid ahaa abwaanada Soomaalida si weyn ugu caan ahaa matalaada iyo jilista riwaayadaha wacyigelinta ah marxuun Ibrahim Ismaaciil Sugulle oo lagu naanaysi jiray Sooraan ayaa waxa uu ku dhashay deegaanka Kirir oo dhinaca bari kaga beegan magaalada Burco waxaana ku barbaaray magaalada Burco isagoo intaas kadibna u wareegay magaalada Muqdisho Sooraan Ismaaciil Sugulle ayaa waxa uu sanadkii 1979 ku biiray fanka isagoo ka mid noqday kooxdii la oran jiray Durdur sidoo kalena waxa uu la soo shaqeeyay kooxihii fanka ee Waaberiyo Horseed oo ay shaqadiisu ahayd matalaad iyo alifida sheekooyinka Sooraan ayaa ku sugnaa Somaliland tan iyo markii ay dib u la soo noqotay madax banaanideeda isagoo matalay riwaayado kala duwan oo wacyigelin iyo maada kuwaas oo si weyn ugu faafay bulshada Soomaalida ee daafaha caalamka ku kala nool hadeerto maxaad ilaahay may waxaan ku yiraahdaa hadeerto maxaad ilaahay may markii dhaweyd maxaad ilaahay hadeer maxaad ilaahay baan ku markii dhaweyd maxaad ilaahay marxuumka ayaa waxa uu geeriyooday xanuunka COVID-19 oo labadii toddobaad ee ugu dambeeyay uu la xanuunsanayay isla markaasina lagu la tacaalayay xaaladiisa isbitaalka u gaarka xanuunkaasi ee ku yaala magaalada Burco inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun wa Khalid Bakayle wararka fogaan aragga xorta ee Man TV Burco